saynis yahanada jaamacada Galasko ayaa hada isticmaali kara birintino 3D si ay u sameeyaan daawooyin iyo maadooyin kale oo kiimika ah. habkan cusub waxa ku jira cirbad robot ahaan loogu maamulayo aalad qad loo isticmaalayo oo kiimikada iyo maadooyinka isku qasaysa. cilmi-baarayaasha ayaa rajaynaya in mustaqbalka ay dhaqaatiirtu awoodi doonaan inay soo dejiyaan daawooyin dadku ay shakhsi ahaan u baahan yihiin. Microsoft ayaa ku dhawaaqday barnaamijkeeda cusub ee Windows 8 oo afar nooc oo kala duwan ku imanaya. nooca Pro version ayaa loogu talagalay dadka professionalka ah. Enterprise-ka isna waxa uu noqonayaa mid ganacsiga loogu talagalay. midka dadka caadiga ay wada isticmaali doonaan waxa uu noqonayaa Windows 8. RT Edition ayaa isaguna wuxuu noqonayaa mid ku iman doona kombiyuutarada iyo tabletska oo wata ARM chips, waxaana uu yeelanayaa nooc shaashada la taabanayo oo sita barnaamijyada Word, Excel, PowerPoint iyo OneNote. talaabadan ayaa si weyn u fududaynaysa noocyada kala duwan ee Windows 7. malaayiin qof ayaa dunida ka cabsada duulista hawada, laakiin hadda ayaa barnaamij cusub oo la yiraahdo iPilot waxa uu ka caawinayaa inuu ka baabi'iyo cabsidaasi. barnaamijkan ayaa qofka u ogolaanaya inuu ag fadhiisto qof duuliye ah ka hor inta aanu diyaaradda hawada gelin ama dejin. waxaana lagu isticmaali doonaa in ka badan 24,000 oo garoomada diyaaradaha oo barnaamijkan leh. kadib markii ay codsadeen $100,000 oo ay ku bilaabayaan soo saarista dhowr kun oo saacadaha quruxsan ee la yiraahdo Pepper, ayaa shirkadda ka dambaysa ee la yiraahdo Alerta waxay ururisay $3 milyan bil gudaheed. saacadan oo ah mid duuban oo biyuhu aanay karin isla markaana xukmin ayaa waxay wadataa qaab e-paper oo soo bandhigaya saacadda waxa ku qoran iyo bateri 7 cisho ku shaqaynaya isagoo USB lagu charge gareynayo. waxaana si fudud loo arki karaa maalintii sida e-book reader oo kale. waxay la shaqayn doontaa telefoonada ay ku jiraan barnaamijyada iOS iyo Android. dadka soo saarayna waxay sheegayaan in saacadan ay lahaan doonto barnaamijyo dhinaca orodada iyo golfka iyo waliba baaskiilka ku saabsan.